السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برامج كيني مانديق يا محا عصب oo toddobaad walba kala socon jirteen TV-ga caalamiga ee dalka halka barnaamijku idinka imanayna waa magaalada Laascaanood. Barnaamijkan toddobaad walba waxaan ku soo caasunaa san hore idinku sheegnay qof bulshada muhiim u ah. Toddobaadkan waxa barnaamijka marti ugu ah Maxamed Cabdiqaadir Daawud Istansa waa qoraa waa macallin waa aqoonyahan waa professor hortiina keeni doona ku soo dhawow barnaamijka Maandeeq waa ku dhawaay muna aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga iyo dalka TV-ba waa idin mahadcelinaya fursadan aad isiiseen maanta ku joogna magaalada Laascaanood waa tahay daawadayaal Istansa waa soo dhaweeyay bal waxaan u kala bixi doonaa bulshadeynta iyo buugga hadii ay ka dhigo muna aad baad u mahadsantahay mar kale buuggan aad iga wareysatay buugga magaciisa waxa la yiraahdaa Plight and Progress marka waa buug novel ah oo qiso ah كلي waxaan kamid ah anigu dadka qisooyinka novelada qoro marka buugani waa buug qiso cusub haduu soo baxay wali dalka si wacan uma soo wada gaarin marka magaciisana waa Plight and Progress aan sheegay marka ereyga plight waa dhibaato progressna waa horumar marka waa qof sheeko ku saabsan wiil yar oo marka hore dhibtoodo aad u dhibtooday kadibna horumar ka gaaray weey nolosha horumar ka gaaray tahay inta badan waxaad qortay buug badan waxaad ku qortaa luqadda Ingiriisiga qof in Soomaaliya tahay luqado badan baad ku hadashaa laakiin maxaad ku jeclaatay inaad luqadaha ku qorto buugta aad baad u mahadsantahay waxaan filayaa dad badan baa i weydiiyay su'aasha caynkana oo dadku waxay ugu yiraahdaan Soomaali baa tahay maxaadan afka Soomaaliga buugtaada ugu qorin marka macnaheedu ma aha inaan afka Soomaaliga wax ku qorin oo waan leeyahay buug af Soomaali ku qoran hal door la yiraahdo laakiin sababaha aan u doortay inaan afka Soomaali aan afka Ingiriiska ku qoro waxa kamid ah tusaale ahaan buugani inuu caalamka gaaro waxaan anagu qorayna fariinta aan gudbinayno inay caalamka gaari karto oo dadka kale bulshada adduunka nala akhrisan karaan si ay u ogaadaan adduunka waxa lagu tartamayaa fikir iyo ilbaxnimo marka ilbaxnimo weyn bay Soomaalidu leeyihiin ilbaxnimada Soomaalida marka waxay u baahan tahay in adduunka la gaarsiiyo sida daraadeed waxaan doortay inaan Soomaaligana wax ku qoro Englishkana wax ku qoro ee macnaheedu ma aha inaan English wax ku qoro waa tahay Cabdiqaadir Daawud Istansa waxaan buug badan leedahay aad ku qortay Soomaali Ingiriisi in wax lagu qoro maaha wuxuu laakiin inta badan Soomaalideeni xagga Soomaaliga maadaama deegaankeena joogno Soomaaliga inta badan la akhriya marka saas uu su'aashu ahayd buuggan wuxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay wax xambaarsan macno weyn waxyaabaha aad kaga hadlayso waxa kamid ah sida maandooriyaha qaadka waa mawduucyo runtii xasaasiya sidee kugu suura gashay inaa mawduucyada waaweyn aad hal meel isku keento munay waa sax buugani dan ka jawaab su'aashaada saddex mawduuc oo muhiim ah ayaa buugga ku jira waa mid koowaad buuggu wuxuu soo bandhigayaa dhibaatada maandooriyaha qaadka uu bulshadeena ku haya gaar ahaan doorka uu ka qaato burburka qoysaska Soomaaliyeed marka waa arrin aan u arkay in bulshada loo soo bandhigay inay u baahan tahay sababtoo ay tahay waa dhibaato jirto xalna u baahan ka qora ahaan mas'uuliyad baa iga saaran taa waa mid kale ee waxa weeyaan asagana mawduuca kale waa xuquuqda dhallaanka iyo muxuu ahaa xadgudubka xuquuqda dhallaanka oo dalkeena in badan ku badan hada wiilkan yar aan ka hadlayo sababta reerkoodu u burburay qaadkaas kamid ah maxaa yeelay wiilkan yar ee sheekada ay ku socoto mala awaalka waxa la yiraahdaa sigad marka isagu waa inan yar hooyadii waa la furay aabihii wuu qayla isaguna wuu qooriyaa marka odayga wuxuu ku yiraahdaa marka aad qooriso marqaanka ayaad iga jiiraysaa oo adiga xumaynaysaa marka saad daraadeed dhibaatada halkaas ka bilaabatay marka waxa imaanaysa inuu cunugi dilo dhibaatooyin badan inuu la kulmo inuu reerkooda ka cararo dabar go'a iyo xaalufka deegaanka dhirtan la jarayo iyo dhibaatadan socoto in iyadana la soo bandhigo marka habkan u soo bandhigayna waa hab mal awaal ah oo qoraagu mas'uuliyad baa saaran dadka wax qoro inay dhibaatada arkaan kadibna ay soo gudbiyaan halkeedana markaas dadka decision makers ka go'aanada gaaro
ay u taala inay xalka gaaraan marka saddexda mowduuc saasan iskugu falkiyay oo markaan u soo bandhigay waa tahay waa maasan tahay kulay su'aashan ku weydiiyay sida ahayd baad uga jawaabtay in mowduucyada xasaasiga ah aad hal meel isugu keento taasina ay tahay qofku maadaama qoraa uu yahay ama uu yahay qof hal abuura inuu wixii ka hadlo bulshada u soo bandhigo aktarka sheekadan waxaa ka mid ah meelo badan buu tagay safar ku tagay meelaha uu tagay waxaa ka mid ah Norway, Suudaan, Japan, Kenya ka qora ahaan meelaha miyaa tagtay haddii aana tegin sidee bay kugu suuro gashay inaad hal meel ama mowduucaad kaga wada hadasho Soomaaliya oo kale Kenya, Senegal wadanka la yiraahdo Senegal, Japan, Norway iyo Sweden oo wadamada uu socdaalka ku maray marka dambe uu tagay dabcan anigu kulay wadamada qaar ka qora ahaan Kenya oo kale waa meel aan joogi jiroon garanayo dhaqankooda wadanka Suudaan muddaan ku noolaa waxbaan ku bartay wadamadan kale ee aan qoraaga geynayane ka kaliya mala awaal weeyaan wax dhab ah aan socod ku tagay ma aha laakiin qoraagu waxa looga baahan yahay marka soo wax qorayo inuu cilmi baarid sameeyo oo wax uu raadiyo kadibna xogtaasi dhaqamada dalkaas oo kale inuu soo gudbin karayo laana waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa meel in laga leeyahay hadaa tagto il baa la istiraa marka qoraagay ka qoraahan marka aan aktarka sheekada waa sigada aan geeyo Senegal qofka akhrinaya waa inuu dhaqamada Senegal fahmi karayo cuntooyinka lagu cuno si loo labisto xilliga ay gabadha halkaas ku baran doonaan waa saas oo kale nolosha Norway oo kale markaan soo bandhigayo iyo Sweden xilliga uu tagayo iyaduna European life ka ama nolosha reer Europe marka meesha ka jir gudbiyay oo ku soo tabiyay marka waxa weeye fariimaha ku jiro qofka Soomaaliga qorayaasha Soomaaliyeed ayaa waxa ku batay kaliya inay tuuladooda ama wadankooda kaliya wax ka qoraan marka taana qoraagu macno badan uma sameeyso qoraagu waxa loo baahan yahay inuu xuduuda ka talaabi karo si uu u soo tabiyo dhaqamo kale dhaqamada kalena marka ay isdhaxgal u sameeyaan adduunka leena waxaan ku noolnahay adduunkan aynu joogno meel aynu iska warhayno bulshada adduunka oo dhan ay isku xiran tahay marka saadaradeed baan ugu doortay inaan wadamadaas oo dhan geeyo oo nolosha Norway uu qofka fahmo markuu buugayga akhrinayo nolosha Sweden uu fahmo tan Japan ka jirto inuu fahmo intooyinka lagu martii Kenya joogo markuu soo noqonay waa wiilka sheekada ay ku socotay aktarka koowaad ee sheekada ah mar hooyadii ayuu boorso ka dafaya marna aabihii buu dagaal ku dhaawacaya marka halka hadaan ku noqdo sigada aabihii iyo hooyadii isagoo yar bay kala tageen hooyadii waxbay barato waa aqoon yahanad way shaqaysatay aabihii waa nin askari ah oo qaylo oo dalkii joogo markuu sigada isagoo yar nolosha ku adkaatay oo uu reerkooda ka cararay wuxuu noqonayaa dib jir maxallihi jiray ciyaalka suuqa ka qarabto noqonayaa saadreed hooyadii marka uu ka xasada markuu ka dafo ma garanayo inay hooyadii tahay islaantu boorsada ka dafayo marka waxa weeye furiinka dhibaatada uu leeyahay ay taas soo gudbinaysaa waxa kale oo iyadana ku jirto marka dambe uu aabihii dhaawici doono waxa uu la dagaalamayaa aabihii ciidan uu commander ka yahay oo banduulo ka yahay iyo asaga oo marka ku biiray waxa la jiray koox kale oo mucaarad ah oo marka dagaal u dhax marayo marka dambe uu aabihii dhaawacayane ma garanayo inuu aabihii qofka ay dagaalamayaan marka fariinta ku jirta waxa weeye cunugaaga hadii aadan tarbiyada u hagaajin oo aadan barbaarin adiga ay cawaaqibteeda dib kugu soo noqonaysa taas weeye marka maadaama uu sigti hayde inaan Soomaaliya wad u guurisay gabadh reer Senegal iyadoo waliba ay joogaan gabdho badan oo Soomaaliya taa qudhooda waxa weeye waa shaqada ugu qosolka badan dadku ay weydiiyaan yaani dadku waxay yiraahdaan war wiilkan yar ee Soomaaliga ah sidee ku dhacday in gabadh dalka Senegal u dhalatay uu marka dambe aad u guurisay sheekada way gabdhii Soomaaliyeed maxay u xaqirtay taa macnaheedu ma aha inaan xaqiray fariinta ku jirta waxa weeyaan wiilkan yar aabihii baa aad u dhibaateeyay oo dhibaato badan buu la kulmay oo dhanka bulshada kala kulmay marka waxaan ku cabirayaa jacaylku inaan xuduud lahayn jacaylku yani gabadha aad doonto jeclaan karaysaa wiilkuna gabadhuna wiilkay doontay jeclaan karaysaa marka gabadhan uu guursanayo Senegal ay isku jeclaanayaan marka dambana Suudaan ay soo wada aadayaan Salimata baa la yiraahdaa Salimata marka waa gabar muslimad ah waana gabar Afrikaan oo Senegaliyad ah hooyadeedna waa cadaan Ingiriis ah marka yani calafku meesha uu ku galo
ayuu ku geynayaa way fariinta ku jirto iyo inaan doonayno de bulshooyinka reer Afrika inay isdhex galaan oo sida aad ogtahay bulshada Soomaaliyeed waxa hore xilli dhaqan ah mar in gabadhaha marka la kala guursado gabadha waxa la oran jiray waa safiirada labada reer bay isku xiri jirtay waa tahay saaro sheega xamar naguntii gunaanadkii fariinta ugu dambaysa ee aad diraysa maxay tahay buugase maadaama uu yahay buug xasaasi oo ka hadlaya wax xaqiiq ah xageed laga helaya adiga iyo dalka TV ba barnaamijkan aad ii qabateen oo marka ugu dambeyntii maadaama aan soo gaarin gabagabada adiga iyo howlwadanada waa idin mahad celinaya marka waxa weeyaan hadaan ku noqdo buugga uu cusub yahay horta mar dhow dalka soo gaaray dalka Masar baa lagu daabacay barbaro hadda soo gaaray welina ma soo wada gaarin insha Allah maalin dhow bandhigiisa meel badan ma ku qaban doona saan qorsheenayo oo ugu horeysa magaalada Laascaanood maanta aan joogno insha Allah waxaan kaga qayb galay bandhigii ugu dambeeyay ee xamar ka dhacay bandhigii buugta xamar cadad kooban baan geeyay cadadka waxa laga heli karayaa maktabada la yiraahdo Hudhud maktabada la yiraahdo Saylac oo buugta meel lagu iibiyo Muqdisho marka qofka Muqdisho haduu hadda ku sugan yahay halkaas ku iibsan karaya marka fariinta aan diray kaliya waxa weeyaan qorayaasha Soomaaliyeed in ay ufuq balaaran la imaadaan macnaha waxaan ka wadaa in ay kaliya tuuladooda iyo dalkooda ay ku fikirin ay gaarsiiyaan fariinta caalamka qofka yani waxyaabaan ku soo bandhigaya waxa kamid ah quruxda dalkeena uu leeyahay waxa ku jirta meel uu aktarku gabadha markay uu soo guursaday arooska waxa ku wada gali doona marka dambe magaalada Xamar marka waxa ku jira ayagoo soo raacay diyaaradan la yiraahdo Freedom Airlines marka muray waxa aad iyo aad xiiso u lahayd maalin dhaweed markaan halkan ka baxay aan Xamar ku socday garowe tigirka markaan ka goostay waxaan sii raacay Freedom Airlines markii ay diyaaradda ka degaysa badda Xamar ay qabsanaysa airportka ay ka degayso sheeka aba buuga ku jirto sigad iyo Salimaato isla diyaaradda ayada lafteeda saaran oo ka degay marka isla qisadii baa iswaafaqday marka aad isugu ekaatay marka bilicda quruxda dalkeena uu leeyahay waxyaabaha aan ku soo bandhigay waxa kamid ah buurta daalo oo kala quruxdeeda yaa ku jirto gobolka Sanaag magaca Ceergaabo ku taalo waxa ku jirto de quruxdii Xamar iyo badda markuu qofka ka degayo noloshoodan dambana liido ayagoo joogo oo halka degay oo ku aroos galay oo hay'ad yar ku sameeyay oo dhalaanka lagu kaalmeeyo ee shaqada ku dhamaanaysa waa tahay daawadayaal waxa inta noogu eeg barnaamijkeena Mandeeq iyo maxaa cusub oo maanta marti igu ahaa Maxamed Cabdiqaadir Daawud Istansa oo san hore idin ku sheegay macallin qoraa professor iyo waliba wax badan أنا شيء نكيب هذا تيفيو ويسكت ضوا واحد كذا تجينا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.